السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا خيارته. نقول كارت مشى أكو أركيسين. كل أنا بلغش كسنا وها. de qaalada hadda soo baahiyeyna dad badan baa ka shakiyey wuxuu yidhi gabar ma rabo Soomaaliyeed kabacdi haddii la baarayna waxaa la arkay inuu qoomka lug marka niman yahow waa markii dhowr jeer ay soo laalaabatay arrintaanu markii koowaad ma aha iska daa marka dowladda marka waxaan leenahay aw sharcigii iyo dadkii diintii aad u dhaarateen iyo dadkan xumaanta faafinaya oo gaalada u shaqaynaya in laga qabtay ahayd maxaa loo qaban waayey wareer waxaa la gaaray xataa baarlamaankeena lagula soo dhiirido oo laisku dayaba in sharci nolo kaga dhigo marka waxay ahayd marka horeba in la yidhaahdo qofkii lagu arko waa la xirayaa xabsigaa la geynayaa xildhibaan ama qof dowladda ka tirsan oo isku dayana isagana xilkiisuu ku waayayaa laakiin dee arrintii waa la fududeeyey macnaha waa iska sahsaday marka markii wixii la fududaystay maxay dhashay in lagu soo dhiirado oo wax kastana lala damco oo barnaamij kasta uu diinta ka soo horjeeda oo liddi ku ah oo dhaqanka iyo asluubta toosan dhammaan ka soo horjeeda in lala soo dhiirado sharcina loo kaga dhigo isku daya dadka dhalinyarada in laga dhaadhiciyo alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale dhammaanteen waa soo jeednaa indhaha anagu waa furan yihiin cidna gaadi ka dha iyo cidna siri ka dhah ma jirto ka wiilkiina waa fashilmay raggaa inuu ka tirsan yaha la arkay waxaan leenahay asagana haliska jiro kuwa la midkaana waxaan leenahay ninkuna waxa weeye asagana waxaan leenahay toobadkeed ilaahay u soo noqo waxa weeye diintaada iyo waxa weeye adduunyada wax yar weeye waa la dhimanhayaa waqti yar baa la joogayaa intaa yarta ayaa isku sirin lacagta yararka iyo waxa yarka adduunyada waxaad ku leedahay waxaad ka cunto kasaad ku leedahay wixii kale waa dhammaanaya waa ka tegaysaa marka nin yahow tala walaalnimo iyo mid saaxiibtinimo iyo mid soomaalinimo intaba waa kusoo jeedinaynaa halkan aniga asxaabtanada iyo dadka soomaalida waxay ku leeyihiin ilaahay u toobadkeen wixii qowmuluud lagu halaagay ha samaynin baahi maanta ma jidho ilaahay dumar iyo rag buu abuuray dee ma keenaysa baahi marka nin waxa weeye loogu baahdaa ma jidho marka niyo adigan iimaanka iyo alle kaa qaadin aakhira seekaysu kuu dhicin waxa weeye qowmuluud naata ha la gelin ka soo har toobadkeen ilaahay toobadda waa ku furay ilaa intaad ka dhimanayso inta aan lagu qabanin adoo ficilkaas xun ku jira yaan lagu qabanin walaalow ilaahay u soo noqo ilaahay u toobadkeen soo laabo dadka waxa weeye diinta kiristaanka iyo hay-adaha u shaqaynhaya diinta waxa weeye ragaadinhaya bulshada Soomaaliyeed dhaqanka xumada ku faafinaya waxaasoo dhan waxaan leenahay kuwa TikTok inta soo fariista iyo Facebook iyo waxa weeyaan dad ka dhigay dadka Soomaalinimada wareer waxaan gahnaa Soomaalida iyo islaamnimo insa kala harin maanta waxaa la rabaa in la yiraahdo Soomaalidu qaarna waa muslim qaarna waa gaalo halka la jiray Soomaali hadda arto waa muslim macnaha wax kale ku soo dhici mayso wariirka baan joognaa alxamdulillah hadee dad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u gargaarayo dad Ilaahay jecel yahay waxa weeyaan maxaa weeye nabigoodana jecel diintooda jecel u dhimanaya u soo jeedaya ilaashanaya aan la sirikin aqli badan soo jeeda baan nahay marka niyow adigana toobadkeen dhalinyarada dhammaan iyo gabdhaha iyo wiilashana waxaan leenahay war Ilaahay u soo noqda yaa la idin sirin lacag waxba ma aha adduunyada waxa cunto iyo waxa weeye aad xirato iyo intaas seexanaysaad leedahay hal mitir ka badan ma seexanis adduunka intaasaad ku leedahay aakhirana hal mitir ba laba mitir baad ku leedahay oo qabrigaas markii lagu guriyo inta yartaa seexanaysid ee nus mitirka aabaad leedahay hal mitir laba mitir oo dheer nus mitir wax ka yar oo balca lagu seexanaya intaas weeye waxa u baahan tahay ayadana ku dambeynaysa noloshaas weeye nolosha abadiga ah ee joogtada aan dhamaanay tan waa mid waxa weeye faaniya oo dhamaanaysa oo waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qurur ku tilmaamay markii shaydaanku ku siranin in cadawgu ku siranin in duruufta iyo gaajadan lagaga faa'iideysan qof baahan gun weeyaan qof baahan gob maaha ee waa gun macna wala siranay wax kasta loogu sheegayaa marka lacagtu meel xunaysa ka galin iimaanka hasiisan diinta hasiisan
sharaftaada iyo karaamadaada ha siisanin. talaasaan kusoo jeedinaynaa.